جامعة سيتي كوت جامعة سيتي كوت جامعة سيتي كوت كلها ثلاثي جامعة سيتي كوت جامعة سيتي كوت جامعة سيتي كوت jaamacadda City Code oo kamid ah jaamacadaha ku yaala dalkeena kuwada ugu teeda wanaagsan ayaa muddadii jirtay waxay sameysay horumar baaxad leh. muddadii jaamacaddu jirtay waxay sameysay nidaam waxbarasho ka turjumaya baahida bulshada iyo horumarka dalka iyadoo jaamacaddu diiradda saartay sidii ardada loo siin lahaa aqoon iyo xirfado casri ah oo la jaan qaadaya isbedelada adduunka. haddaba madaxda Puntland maxay ka tiri barnaamijyada waxbarasho ee jaamacadda City Code? jaamacadda City Code waxaan ku faraxsanahay muddada ay jirtay ardada ay soo saartay iyo heerka ay gaartay waxaan u rajaynayaa ilaahay idankiis guul intaan ka badan waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inay jaamacaddan ahmiyadda saarayso culumta sayniska oo muhiim u ah horumarka bulshadeena rabta inay gaarto si dhow aan ula socon doonaa jaamacadda aniguna si gaar ah ayaan ula socon doonaa haddii ilaahay idmo aad baad u mahadsantihiin runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa barnaamijkan ay soo bandhigtay jaamacadda City Code waxaa ilaahay xamdigii ah barnaamijkan maanta soo bandhignay qaybtii arrimaha bulshada wala qaybtii waxbarashada himilooyinkii iyo barnaamijkii 5 sano in la gaadho ahaa iyo soo bandhiga maanta ay caawa soo bandhigtay jaamacadda City Code horumarkan weyn xagga aqoonta ay la mataanooday jaamacaddan 5 scholarship uu sheegay 5 veterinary-gana waa ku dari lahaa horta tobankaas oo laakiin wali shaqaalaha dawladda ee wasaaradaha si kor loogu qaado aqoonta shaqaalaha ee wasaaradaha jaamacadda City Code runtii waa idin hambalyeynaa waxaan idin rajaynaynaa programka cusub ee aad bilowdeen oo noqdo guuleysta runtiina waxaa ka muuqatay markay halka ku soo bandhigayeen inay ku jireen qaybo ku cusub dalka muhiimna u ah gaar ahaan dhinaca production sector-ka ama wax soo saarka wasaaradda caafimaadka in scholarship ahaan 5 arday oo aan ku bilowno oo jaamacaddan ay galaan haddii alla yiraahdo marka maanta haddii arrimaha bulshada aad uga caawinay shaqalaanta baahsan oo jirto dhalinyarada ah oo 8% waxay tusi kartaa in muxuu ahaa jaamacadaha ugu horeyso City Code in ay halka fursad ay ka bannaan tahay oo wax badan ay baran karaan jaamacadda City Code jaamacadda ay la midoobeen dalwadi barnaamijka master program aad baan u soo dhaweynaya waa loo baahan yahay waxbarashada iyo cilmiga in la horumariyo la baahiyo haddaan nahay wasaaradda tacliinta waa soo dhaweynaynaa jaamacadda City Code dhammaan madaxda Puntland ee ka hadashay barnaamijyada waxbarasho ee jaamacadda City Code ayaa xusay doorka ay jaamacaddu ka ciyaarayso horumarinta waxbarashada iyo xirfadaha dhalinyarada waxay si gaar ah u amaaneen dadaalka ay jaamacaddu ku bixinayso kor u qaadida aqoonta iyo tacliinta sare ee dalka waxay madaxdu xuseen in tallaabooyinka dhinaca horumarka ee waxbarashada ay jaamacaddu ku talaabsatay ay qayb weyn ka tahay istiraatiijiyadda dawladda Puntland ee dhisidda nidaam waxbarasho oo tayo leh